madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Deni ayaa ka hadlay xiisada siyaasadeed ee ka jirta dalka Soomaaliya taas oo u dhaxaysa madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Roble. Waxa uu Siciid Deni cadeeyay ama uu sheegay in madaxweynaha dalka Soomaaliya Farmaajo uu si cad baarlamaanka hortiisa oo mas'uuliyadii amniga iyo doorashooyinka ugu wareejiyay ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble kadib qalaasihii ka dhacay bishii Abriil magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. 27kii bishii May dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxay xamar ku saxiixeen heshiis iyo habraacyo doorasho oo dhigaya in doorashada iyo amniga dalka inuu ra'iisul wasaaraha hogaamiyo. Runtii wixii lagu heshiiyey inuu khilaaf ka yimaado waxay ceeb ku tahay dadkii heshiiskaasi saxiixay, ayuu yiri madaxweynaha Puntland Siciid Deni isagoo arrimahaasi ka hadlayay waxaa ka mid ah hadaladiisa. Waxaan rabaa runtii inaan iyadana wax yar ka iraahdo xaaladda dalka Soomaaliya marayo oo runtii barihii u dambeeyay ka muuqata cakirnaan dadkana aad moodid in ay rajo xumo badan ay soo galayso. waxaan insha Allah u rajeynayaa dadka Soomaaliyeed inaynan rajo dhigin, rajadana ay gacantooda ku jirto oo ay mar walba u saciyaan in dalkan uu hore u socdo gadaal u soo noqon. waxaan ognahay dalku inuu doorasho galay. waxaa si cad madaxweynaha 1 May uu baarlamaanka federaalka hortiisa ka sheegay in doorashada iyo nidaamka amniga oo runtii muran badan ka jiray oo caqabad ku ahayd inay doorashadu hirgasho isbedeladii dhacay bishii Abriil iyo khalalaasihii ka dhacay Muqdisho kadib uu goostay inuu amniga iyo doorashooyinka ra'iisul wasaaraha uu ku wareejiyo si ay shaqadaas u fusho. waxaa 27kii May mar labaad dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay xamar ku saxiixeen heshiis iyo habraacyo doorasho oo dhigaya doorashada iyo amniga dalka inuu ra'iisul wasaaraha hogaamiyo. runtii wixii lagu heshiiyey inuu khilaaf ka yimaado waxay ceeb ku tahay dadka heshiiskaas galay. waxaan rajaynayaa heshiiska sidii uu ahaa inuu u fulo, ra'iisul wasaaruhuna oo runtii doorashooyinka iyo amniga dalka mas-uuliyadda la saaray uu guto, madaxda kale oo madaxweynuhu u horeeyana in ay wixii ay ballan qaadeen ay fuliyaan oo fursadaas ay ra'iisul wasaaraha siiyaan si uu shaqooyinkiisa u guto. madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkana ay gacan ku siiyaan sidii doorashadaasi ugu dhici lahayd si hufan oo carqalad yar.